بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال مeel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo soolbood nala socotaan halkani waa shabakada wararka ee shacabka TV oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. qodobada wararka xiliga kani aan idin hayno waxa ugu weyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo magacaabay guddi gaar ah oo la soconayo hantida qaranka si aanay loogu tigrafalin. guddigaasi oo sidoo kale baaritaan ku sameynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha. talabada cusub uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan idin soo gudbin doonaa iyo Roble oo markaasi ka naxsan talabada. akhbaraadka kale aan idin hayno waxa ugu weyn jug culus oo siyaasadeed oo ku dhacday Axmed Madoobe oo isku diyaarinayay in kuraasta taala gobolka Gedo loo wareejiyo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose si uu boob ugu sameeyo سلمدا كراستي أقل كسره وحنودي سو قدود دونا جبك سياسات يكون عين مذوبة كدب مركي أي شقين كروي ذي إلا بدلوا ديجان دور الشدة لبدا ما قالوا لو أستي دور الشدة كراسته قلها الشعب كا يدو أو سيدو كله جنرال حوت كي دبعتها كوري بلدوينه لقن عيي إسلام كان الله شيء إنه سنكوري ما كرين باقشده جميع يرشبه لا تجسته بين كان مجالده بلدوينه iyo in kuraasta xubnaha baarlamaanka ee taala beledweyne halka lagu qabto. waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadda dalka iyo doorashooyinka. Saciid Cabdullaahi Dani oo ugu dambeyntii u hoggaansamay go'aankii ka soo baxay ismada dhaqanka ee Puntland ee ku aadanaa in aanay BSF lagu xadgudbi karin xilli uu sidoo kale booqasho ku tagi doono dhanka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaasi oo markaasi uu Saciid Cabdullaahi Dani heshiiska kula seexan doono saraakiisha sare ee BSF. iswaalwaalkii Saciid Cabdullaahi Dani ee in muddaha socday ayaan eegi doonaa iyo wariye Maxamed Ibraahim Maclimow afhayeenka xukuumadda Soomaaliya oo dhawaantan ku dhaawacmay qarax ismiidaaminta ahaa oo xaalad caafimaad loogu qaaday dalka Turkiga halkaasi oo lagu soo baxnaaninayo madaxweyne Farmaajo oo markaasi dowladda Turkiga kala hadlay in xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda si wanaagsan loo dabiibo ayaan eegi doonaa. qodobada iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa intaan warka ku guda jirno. meel kastoo aad dunida ka joogtaan kulanti haboon ayaan u leenahay daawadayaal. halkani waa shabakada wararka shacabka TV oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay shacabka TV waxaanu ka codsanaynaa inaad gacmo furan ee ku soo dhawaato isla markaana subscribe tiraado channelka shacabka TV si ay wararka kugu soo dhacaan muuqaalkana like noo saar sidoo kale gabmalaalka furo hasaate doodeedu waxay ku saabsan tahay oo ra'yigeena saliimka ku soo cabiri kartaan intaan warka iyaga ku guda jirno. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay mar kale in lagu tigrafalo hantida qaranka iyadoona uu magacaabay guddi gaar ah oo markaasi eegaya dhaqdhaqaaqa cid waliba oo xilka haysa dowladda Soomaaliya oo markaa ka mid yahay Maxamed Xuseen Roble. talabada geesinimada leh uu qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daraa'igeena ku soo cabiri kartaan iyo qodobada kale ee warka. hasaate marka hore waxaanu idinka codsanaynaa si naxariis ku jirto inaad soo caawisaan aabbahan Soomaaliyeed oo kaliya fariisteen kaasi oo gudaha dalka wax looga qaban kari waayay. xanuun ayaa siibay xagga rabbiga yimi. xanuunkaasi wuxuu yahay muddo hadeerto ku dhimo taqriiban ilaa 12 sano ilaa 9 sano ku dhow. xanuunkaasi marka hore dhikar baan lahaa markii dambena faarig baa igu dhacay neerfaha oo dul maray. iskaankii la saaray waxay yiraahdeen dadkii dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen labada kaliyood bura dhamaysi bura baaba ka dhigto sida sambabka oo kale dalkana wax laga qaban karo waa bedel. waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto inay waxa weeye soo caawiyaan oo Ilaahay dartiisa soo caawiyaan. aynu ku bilowno warkeena. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudanaya waajibka qaranka ka saaran ayaa markaasi wuxuu magacaabay guddi cusub oo markaasi ka shaqeynaya ka warqabka hantida qaranka iyo sidoo kale in aan lagu tigrafalin
hantida ay leeyihiin iyo xoolaha ummadan Soomaaliyeed maadaama lagu guda jiro waqti kala guur oo doorashooyin ah. Talabadan uu qaaday madaxweynaha qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muujinaysa sida uu madaxweynuhu mas'uuliyadda weyn isaga saarayo in hantida qaranka aan boob lagu sameynin maadaama ay soo ifbaxeen dhawaantan ninkii laga dhigay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble in uu markaasi boob ku sameeyay qayb ka mid ah dhulka ciidanka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada badda ee Mariniska iyadoo oo sidoo kale musuqmaasuq kalena uu soo galay Maxamed Xuseen Roble. taasi ayaa la aaminsan yahay inay ka dambayso go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. guddiga uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la socodka xaaladda dalka ayaa isugu jira saraakiil ka tirsan qaybaha hay'adaha amniga, mas'uuliyiin dowladda federaalka Soomaaliya xilal ka haya iyo agaasimaha madaxtooyada qaranka. waxaa sidoo kale qayb ka ah khubro aqoon-yahano ah oo markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya guddiga uu qayb ka dhigay maadaama guddigan loogu talagalay inay ilgaar ah ku hayaan wax waliba oo musuqmaasuq ah haddii lagu sameeyo hantida ay leeyihiin ummadan Soomaaliyeed. waxyaabaha uu caanka ku yahay madaxweynaha qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka mid ah in uu ka soo baxay ammaanada iyo mas'uuliyadda muddada 5 sano ku sii dhow ee uu hoggaanka dalka hayo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu aad ula dagaalamay musuqmaasuqa iyo xatooyada taasi oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed badankooda caado dhaqameed ay ka dhigteen. hase ahaatee ninka la yiraahdo Roble ayaa isagoo xafiiska jooga bilooyin qura waxa uu ku weeraxay hantida ummadda Soomaaliyeed. su'aalaha la isweydiinayana waxaa ka mid ah nin markaasi mas'uul madeeda haya haddana laga celcelinayo hantidii qaranka. Shacabka TV wuxuu ummadda Soomaaliyeed dib u xasuusinayaa khudbadii hore u jeediyay madaxweynaha qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu kaga hadlayay musuqmaasuqa isla markaana kaga digay cid waliba oo mas'uuliyadda qaranka haysa in aanay musuqmaasuq ku dhawaanin ama ku milmin. waxaan rabaa inuu dumiyo wuxuu u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri waxaan rabaa inuu dumiyo wuxuu u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri dhiso. guriga xagee ka dhisanaysaa haddii magaalada quruntay magaalada haddaysan amni lahayn oo qofkii amniga ka shaqeynaya mushaarkiisa aan la siin karin xagee ka dhisanaysaa guri? caruurtaada xagee iskoolka aadaya haddii adigu aad jeebka gashatay guri ku dhisatay macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa. marka qofkaasna waa qof maan gaaban umad uma adeegi karo waa qof dan shakhsi ah ka shaqeeya aqoonta in lagu dadaalo. qof kasta halkan fadhiya waxaan iska aaminsanahay ama qiyaasana inuu aqoontiis ku yimid enough maaha inaad aqoonta kordhisaan oo wax barataan oo areada ladin xil saaray aad ku noqotaan qofka ugu khibradda badan ugu aqoonta badan oo wax laga barto. marka inaan laga caajisin waxbarasho oo aqoonta kor loo qaado aqoonta la kordhi kor loo qaado oo shaqaalaha midka ugu hooseeya aqoontiisa la dhiso ay ugu horeyso aqoonta civil education. mas'uuliyadda adiga aad meesha ku fadhido maxay tahay horta wax entitlement ah maaha awooga oo ka dhaxlay maaha waa ammaan lagu dhiibay. haddaba madaxweynaha inta badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu aad ula dagaalamaa musuqmaasuqa. halkaasi aad weli nagala socotaan daawadayaal waa shabakada wararka ee Shacabka TV meel kastoo aad dunida ka joogtaan kulanti haboon ayaanu dilanahay oo ka saaragtay dhiibta qodobada wararkeena. hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu dambeyntii u hoggaansamay amarkii ka soo baxay ismada dhaqanka ee Puntland iyo go'aanka BSF. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaantan booqasho ku tagi doona magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. halkaasi wuxuu uga qayb gali doonaa munaasabad lagu kala seexanayo heshiiska ay ismada dhaqanka Puntland kala dhaxdhigeen hay'adda BSF iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo taasi xal loogu raadinayo colaadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. xog uu helay Shacabka TV ayaa muujinaysa
in Saciid Cabdullaahi Dani ay duruufta ku kaliftay inuu aqbalo go'aanadii ay soo saareen guddigii kala dhexdhexaadiyey ciidamada BSF iyo xafiiska Saciid Cabdullaahi Dani. haddaba Dani imanka waxa uu u muuqdaa mid loogaga adkaaday duulaankiisii qaawanaa ee uu ku qaaday BSF iyo sidoo kale qoyska reer Diano. walow heshiiskan aan la ogeyn dhaqangalkiisa hase ahaatee wuxuu Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale dhankiisa noqday mid siyaasadda Puntland iyo tan Soomaaliyaba ku fashilmay. dhinaca kale jug culus oo siyaasadeed ayaa gaartay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoo hogaamiyaha maamulka Jubbaland uu isku diyaarinayay in uu boob ku sameeyo kuraasta xubnaha golaha shacabka qaybta ka imaanaysa gobolka Gedo iyo inuu geysto magaalada Kismaayo ayaa waxa meesha isaga baxay deegaan doorashada labada magaalo in lagu soo koobo hal magaalo. qaar ka mid ah deegaanada gobolada dalka ayaa laga cabsi qabay in aanay doorashada ka wada dhici karin sida magaalada Beledweyne oo xiisadu ay ka taagnaayeen, balse waa la xaliyay xiisadaas iyadoo jabhadda Xuud ay aqbaleen booqashada hogaamiyaha dowlad goboleedka Hirshabelle Guudlaabe iyo in lagu qabto kuraasta xubnaha baarlamaanka qaybta gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. taasi waxay noqotay mid ay ku quusteen ragga siyaasiyiinta ee markii hore u durbaantumanayay in hal magaalo oo qura dowlad goboleed kasta uu ku qabto doorashada xubnaha kuraasta golaha shacabka. Madoobe waa ay u shaqayn kari weyday fikirkiisii guracnaa ee ahaa in doorashada xubnaha kuraasta ee golaha shacabka qaybta gobolka Gedo loo wareejiyo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose si uu markaasi boob qaaban ugu sameeyo. gabagabadiina dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka Turkiga xaaladda caafimaad oo baxnaanin ah waxay ugu qaaday afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Maclimow kaasi oo saacadii la soo dhaafay la geeyay dalka Turkiga. Maclimow ayaa ku dhaawacmay qaraxii toddobaadkan gudihiisa lagula bartilmaameedsaday goob u dhow hoygiisa gudaha magaalada Muqdisho. qaraxaasi oo dhaawac xoogan uu ka soo gaaray walow xaaladiisa caafimaad la soo warinayo sidii hore imanka in ay ka soo yara hagaagayso. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo damqashada iyo naxariista ku caanka ah ayaa aad ugu shaqeeyay in xaaladda caafimaad oo dalka dibadiisa ah loo qaado. Maclimow Roble afhayeenka xukuumadda waa ninka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda wuxuu doonayay dhankiisa in loo qaado Maclimow dhanka Imaaraadka Carabta, balse madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa taasi gaashaanka u dururay oo amray in loo qaado dalka Turkiga. warkii aad kala socoteen daawadayaal shacabka TV waqtigani waa naga inta waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena waa inoo qeybaha kale ee wararka isha ku haya shacabka TV nabadgelyo.